ومالين جمعة لبعتنك بيش جون لبدا كون يشاني لبعتنك برنامج كان المانتا waxaan ku qaadaa dhigi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee ka soo baxay howlaha ka socda bariga dhexe gaar ahaan dagaalka u dhaxeeya Iran iyo Israel waxaan eegi doonaa insha Allah taala hadaladii uu sheegay madaxweynaha dalka Mareykanka galabta oo jimca ah iyo wixii ka soo baxay wada hadaladii u dhaxeeyay wasiirka arrimaha dibadda Iran Abbas iyo European Unionka haddii aan ku hormaro waxaad wada ogtihiin in dagaalkii u dhaxeeyay Iran iyo Israel uu usbuuc jirsaday oo uu u talaabay usbuucii labaad dagaalkan ayaa waxa aad iyo aad la isku adeegsanayaa nin walba tabartiisa iyo taagtiisa waxa uu haysto Iran ayaa waxa aad u isticmaalaysaa gantaalo kuwaas oo gaaraya wadanka Israel Israeliinta ayaa iyagu waxa ay isticmaalayaan diyaaradaha F-35ka dalka Mareykanka lagu sameeyo kuwaas oo moodo in Iraniyiinta ay xal u laayihiin Israel ayaa iyadu waxay xal u laadahay gantaaladan ka soo gudbayo xuduudeeda oo soo dhaafayo Iron Dome-ka systemka ay isku difaacaan loogu talagalay inuu gantaalada ka hortago waxaa la soo warinayaa in dowladda Israel ay ku rafaadsan tahay gantaaladan ciida ka farabatay oo ay soo dirayaan Iraniyiinta waxaana la sheegay in xabadihii ay ku soo qabanayeen gantaalada ridada gaaban iyo kuwa medium range-ga oo dhexdhexaadka ah ay ku qabanayeen inay la yihiin rasaastii ay kasii dhamaanayso taasna ay kasii dhigayso baa la yiri dowladda Israel in ay sii noqonayso mid gacmo maran oo hubkii hataa ay isku difaacaysay oo gantaalada ay uga hortagaysay ay gabaabsi ka yihiin mar laga wada hadlay arrinkan ayaa waxaa la sheegay in dowladda Mareykanka ay walaac saa'ida ka muujinayso arrinkan ku saabsan in Israa'iiliyiinta ay kasii dhamaanayaan oo gabaabsi ay ka yihiin gantaaladii difaaca waxa ay sheegeen in haddii ay noqoto Mareykanka in uu dib u geeyo gantaalo ay noqon doonto baa la yiri kuwa laga soo qaadayo difaaca ay ugu talagaleen Taiwan ama difaaca ay ugu talagaleen Ukraine oo hadda Ruushka ay agdhigeen waa xabadaha waxaan ka hadlayno lagu difaaco gantaalada looga hortago iyo in Mareykanka naftiisa qaybtii uu haystay oo kaydka u ahayd in intuu qaado uu geeyo Israel bay noqonaysaa meeshaas oo ay sida sheegeen keenaysa in Mareykanka ama Taiwan oo China weerar looga cabsi qabo ama Ukraine ay mid un dayacmi doonto saas ay sheegeen marka arrinkan wuxuu keeni karaa baa la yiri in labada usbuuc ka horba haddii Iran sida hadda xawaaraha ay wax ku wado in labada usbuuc ka horba Mareykanka ku qasbanaan doono in uu tallaabo qaado oo uu soo farageliyo dagaalka waxaa kaloo la sheegayaa mar la wareystay madaxweynaha dalka Mareykanka galabta waxaa su'aalo lagu weydiiyay ayuu ku sheegay in Iran uu siinayo labada usbuucna uu ugu talagalay in ay isku soo dhiibaan oo ay kaga taqluusaan barnaamijkooda nuclear-ka waxaa mar la weydiiyay intelligence community-ga dalkan Mareykanka ayaa waxa ay sheegeen in Iran aysan samaysanaynin wax nuclear bomb ah hadeer isaga oo ka jawaabaya arrinka isaga ah ayaa waxa uu sheegay in Tulsi Gabbard gabadha u qaabilsan arrimaha nuclear-ka Iran oo dhowr jeerna la gashay wada hadallo dowladda Iran ayaa waxa ay cadeynteedii ahayd in aysan wax nuclear samaysanaynin dowladda Iran Obama buu wuxuu sheegay madaxweynaha in ay qaldan tahay su'aashaas wuxuu uga jawaabay gabadhaas way qaldan tahay waxaan ogahay oo aan hubaa buu yiri in Iran usbuuc ama laba kadib ay hataa ay samaysan karto waxa ay rabto waxaan siinayaa buu yiri xilligan aan u qabtay oo labada usbuuc ah haddii ay ku soo jawaabi waayaan ama dhiilka aan u hayo ay qaadan waayaan waxaan ku qasbanaan doonaa inaan tallaabo ka qaado madaxweynaha ayaa waxa la filayaa caawa inuu ka qayb galo casho oo taageerayaashiisa qolyaha loo yaqaano MAGA Make America Great Again uu rabaa inuu la qaato su'aalo badanna uu ka jawaabi doonaa dhanka kale waxa maanta kulan uu dhex maray European Unionka oo dhammaystiran midowga Yurub iyo wasiirka arrimaha dibadda Iran Abbas ayaa waxa uu sheegay in dowladda Iran aysan wada hadal geli doonin ayada oo xabadda ku socoto ama aan lagu qasbi doonin in wada hadal qasab ah ayada inta
Israel ay joojinayso buu yiri weerarka gardarrada ah oo ay nagu soo qaadeen oo aan wax xuquuqa oo ay u leeyihiin inay soo weeraraan aysan jirin. marka inta wuxuu u sheegay state European Unionka inta wuxuu yiri ay go'aankaas qaadanayso Israel ama la helayo xabad joojin rasmi ah oo u dhaxaysa labada dal wax wada hadal ah oo Iran ay diyaar u tahay inay ka gasho ama nuclear programkeeda ha ahaato ama xabad joojin ha ahaato ma jirto. Iran ayaa iyadu waxa ay muujisay in ay ka awood badan tahay sidii la filayay, waxana ay muujisay in dhanka gantaalaha ay ku horeyso, iyadana waxa looga horeeyaa dhanka cirka. State Department-ga dalka Mareykanka ayaa isagu waxa la sheegayaa in uu arrinkan banaanka ka joogo, ka aamusan yahay, waxa isu jawaabayana ay tahay madaxweynaha dalka Mareykanka iyo Iran. mar loo sheegay madaxweynaha Mareykanka arrinkan ku saabsan in Iran ay tiri ilaa xabadda ay joojiso Israel oo dagaalka gardarrada ah oo ay nagu soo qaadeen ay joojiso, wax wada hadal oo aan galayna ma jirto. ayuu wuxuu sheegay madaxweynaha sidii caadiga ahayd Iran inay la hadasho European Unionka maba ahaba buu dhahay, dadka ay rabaan inay la hadlaan waa annaga wax nagala dhaxeeyaan, annaga talaabo ka qaadayno, annaga dagaalka ku soo biirayna ama annaga iska daynayna. So in actuality wuxuu dhahay dadka rabo in ay la hadlaan waa annaga. So arrinkan Iran ayaa walwal badan ama Israel ayaa walwal badan waxaa laga muujinayaa in xabadaha ka dhamaadaan, markaa kadibna ay noqoto Israel meel aan difaac lahayn, taas oo waxaa la sheegay looga cabsi qabo in haddii arrinka sidaa uu noqdo oo difaac la'aan ay noqdaan, Mareykankana uu soo geli waayo dagaalka, hubkan hadda loo keeni waayana in ay dhacdo Israel maadaama ay tahay waddan haysta nuclear power ay tahay in ay isticmaasho ayaa walwal laga qabaa. marka Mareykanka waxaa laga yaabaa baa la yiri in 2 usbuuc ka hor uuba soo farageliyo arrinkan, maadaama buu yiri ay tabar u laayihiin Israa'iiliyiintii gantaalaha oga imaanayo waddanka Iran. arrinka hadda wuxuu taagan yahay in Ayatollah Khomeiniga Iran uu sheegay wadamada loo caga jugleeyo oo la dhaho isdhiiba ama taariikhiyan isdhiibi jiray ama isdhiibay forever in aysan ku jirin waddanka Iran. marka Iran niman aqoon baa hadallada barkood ku yiraahda ayuu yiri Ayatollah Khomeiniga, waxaana maanta warkaasi si buuxda u cadeeyay Abbas Araghchi oo isagu ah ninka wasiirka arrimaha dibadda ee Iran. so waxaan eegi doonaa insha Allah taala UN-ta ayaa waxay leedahay shir degdeg iyada nafteeda taas oo ay ku sheegeen in haddii arrinkan hadeer loo sameeyni waayo xabad joojin ay noqon doonto conflicti ama dagaal hadhow hal loo weyn doono. so intay goor tahay bay UN-ta soo jeedisay arrinkan waa in xal laga gaaraa. Iranna waa diiday in ay isdhiibto, Mareykankana wuxuu diiday in uu ka reebo Israa'iiliyiinta inay weerarka ay sii wadaan ama isaga naftiisa uu sheego ama caddeeyo in dagaalka uu soo galayo iyo in kale. inta ayaan rabay inaan idinla wadaago, waan idin salaamahayaa. wixii kale oo ka soo kordha insha Allah taala waan idinla socodsiin doonaa. Don't forget to subscribe to the channel. haddaad hore noola joogtayna like and share the video. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.